شفشي عثمان ماشي عن محامنتي وهم بلينا ولا له قاسم الفتحي وأروسكو الكدعي مقالة مكتشو أنا نحاول أنتو قدية هنا مقالة تحران على كو سكوار الله يدين كديو ويلي عانو قبري عانو هذا ندينكو هم بلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Deeq Maxamed Cali waxaan u hambalyeeyaa caawo taariikhdu tahay 8 bisha afraad 2020 walaalkii Qaasim Abubakar Qaasim oo Fatxi Shariif oo arooskoodu ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho walibana anagoo joogna caasimadda Iiraan ee Tehran ugu hambalyeynayna hambaliyadiisa waxaan leenahay arooskii lagu nastay lagu nagaaday wada jiray nabadgala Allah ayu idinka yeel insha Allah waxaan ka rajin doonaa in ay noqdaan far iyo faraanti labadooda noqdaan labadii taariikhda gala. الرحمن الرحيم همبليو قاسن ويلكيغا قاسن iyo gabadhayda Fadxi waxaanu leenahay alf mabruuk runtii waxaan aan maantayto ku mateli karaa qaasin iyo gabadhayda Fadxi iimaankooda iyo qalbigooda iyo is-aaminaadooda saxaabigii weynaa Bilaal ibn Ribaax ee gabadhii Qureysheed hasha loo soo saaray oo intuu haba sii wado oo hasha uu wado haba milicsanayo dhinaca milicsanayo markuu soo dhugatana iyaduna sii jeesanaysay oo markii inta guriga la isku geeyay aad la socotiin qisadooda wuxuu ahaa Bilaal yani dadkaas dad adduunyo ka saahiray ahaayeen hal go ayay waxa weeye sheer gareyn jireen marka uu banaanka u baxayo saxaabiga Bilaal asaga qaadan jiray marka ay xaaskiisu baxaysana iyada qaadan jirtay hal goob ay sheer gareyn jireen waxa taa la dhig ah oo Qaasim iyo Fadxi ay maanta uga duwan yihiin Soomaalida iyagoo xabsi muddo dheer ku wada jiray oo waxa weeye ay ka soo baxay 18 bishii labaad waxa weeye 2020 caawo oo 20 oo tahay 18 bishii afraad 2020 laba bilood ay ku xayrnaayeen kula xayrnayn Iiraan inay go'aan ku gaaraan inay isguursadaan runtii waxaan u arkaa marka hore inay dad iimaan leeyihiin marka labaadna waxaan u arkaa Qays iyo Layladii labaad ee qarnigan fi hadii qarni leeyihiin Qays iyo Layladii labaad ee qarnigan leeyihiin oo isku qiimeeyeen iyagoo oon adduunyo iyo midna fiirin jacaylkooda qiimeeyeen marka waxaan leeyahay hambalyo runtii Qaasim waxaan ku leeyahay buug aan qoray oo waxa jira la yiraahdo Grow Up Before You Get Married la yiraahdo garaata intaadan guursan daafurkiisa waxa ku jiray nin haday hawada guurgasho hibata laabtiisu asii uu gabar hanaansan oo haybad la arkoodo habeen iyo laba loo dhaxaa hal daldaraadiisa haasawadeeda ka garan hoogtada tahay balobsada casaan lagu hirgto hoogan baa badane hidda guursiga lagu hodmeetaa hal ogaad waxaan hubaa laba qof oo isbaratay qof aad baratay inaad maanta Qaasin oo haysato waxaana hubaa insha Allah aad ku qadarin doonto iimaanka ay kaaga dooratay adiga oo waxa weeye yani aad maxbuus la ahaydeen maantana waxa weeye ku xayirantiin Iiraan inay nafteeda kugu aaminto inaad insha Allah garan doonto waxaan leeyahay alf marra mabruuk alf marra waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay hambalyo insha Allah kii lagu waaro حسن القلب تبریک میگم به قاسم فتحی سالگرد ازدواجتون رو تبریک میگم قاسم و فتحی انشالله که 100 سال ألف مبروك أخوي قاسم إن شاء الله منك المال ومنها العيال فتح شريف أختي كمان الله يحفظها إن شاء الله يجيبوا أولاد الصالحين إن شاء الله وأقول لكم إن شاء الله يا أخوي قاسم این دستش آقا انشالله به پای هم پیشین خانم فاطمه انشالله به پای هم من امیرحسین هستم برای اولین باری که توی جمع آفریقایی‌های عزیز حضور پیدا میکنم مثل اینکه امروز سالگرد این دوتا عزیزه انشالله که به پای هم پیر بشن همبلی halkan waxaan ugu hambaliyanayaa walaalkayga Qaasim walaashayda Fatxi waxaan leeyahay arooskii lagu nagaado Allah ka dhigo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو عبد الرزاق أبو بكر محمد وحن مهم بلينا يا ولا له هيجا قاسم أبو بكر فتحي شريف حسين وحن له هم بليو وحن رجينا يا
hambalyeynaya walaalkay qaasim walaashay fadxi hambalyo wiil caan bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaa uga hambalyeynaa walaashay fadxi shariif walaalkay qaasim hambalyo kii lagu nastay شريف الشيخ حيدين الله يهمبليو حين كنت عني دعوني من صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم بارك عليكم وجمعكم بينكم ما في خير A day that brings the two of you close together. We're gathered